قضب يربع كولنا يا حير كواحد دلي دستور كله لفتيسة أي دلي حير نول لماها عندنا قول لقى كران ما شفتوا دستور كله سعد الحوار يا حير كستو كوري من يشرع على إسلامكم وحبك من شيران حير كان أمام الحوين هالصحيح أما قالوا وكيل هالصحيان وحبك من شيران عندنا قول عقابي كران ما شفتها بينا madaxweynaha ugu baaqeen inuu xeerkaasi baajiyo faafidiisa iyagoo ka hadlayna waxa hadallo doomida marka macnaheedu muxuu noqonayaa ninka qaadiga imika hadii loo geeyo garsooraha ah laba qof oo ikhtiyaarkooda ku siinaystay oo aan amal ka dhigan gogol dhaafna aan samayn muxuu ku xukumayaa Soomaha in la yiraahdo inta la isla ogolayn baa ayaa ciqaab loo iyada loo haya xeer laakiin taa la isla ogoliyada wax lagu marka ugu fiican waa in la yiraahdo hadaan la oranba waa fasax iyadu marka ugu fiican waa in la yiraahdo iyada looma hayo wax lagu xukumo ta kale waxaynu ogsoonahay xeerarkan meelaha laga soo dheegtay laga soo turjumay iyaga laftooduna waa la akhrinaya marka la fasiraayo ee la rabo macnihiisa in la fahmo waxay tajriiminayaan fal dambiyada ay ka dhigeen ciqaabna ay u sheegayaan oo qura ta ku dhacda sinada ama galmada ku dhacda ikhtiyaar la'aan si khasab waxa weeyaan u dhacda xeerkan wuxuu fal dambiyeed ka dhigayaa galmada iyo farka ciyaarka dhexmara labada lamaane ee isqaba sida uma oranayo afka ugu balaarin maayo waxa jira oo luqaadka kamida wax la yiraahdo umumku waa in la isticmaalo eray ay soo gali karaan waxyaabo badan ay hoos iman karaan waxa la isticmaalay qof kasta kelmadda kasta way fahmayna macnaheedu faa'iideynayso qof kasta oo isagoo baahidiisa jinsi qancinaya qof kale farafareeya ama qof kale inuu farafareeyo macna u suurta geliya ciqaab baa loo sheegay qof kasta marka la yiri lama oran kuma jiraan ninka iyo xaaskiisu lama oran meel laguma sheegin taas waxaan nidhi oo ragga qaarkood oo de qawaaniinta aad u yaqaanaan ku nidhi bal waxaad ka warantaa haddii xeerka gabadhi ay qaadato soo dhulka gaalada laga sameeyo oo ay tiraahdo ninkaygii xalay wuu taataabtay ama base galmu ila sameeyay anoon ogolayn oo ay ku ashkatayso ninka garsooraha ahi xeerkaasuna hadduu isku koobo aanu shareeco iyo diin iyo wax kale aanu eegin xaq ma u yeelanayaa inuu ninkaas xukumo ciqaabo uu yeelanayaa bay jawaabta ay noqotay waxyaabaha taa dadka qaarkood ay ku soo ururiyeen waxa kamid ah waxay yiraahdeen meelaha qaarkood waxa lagu sheegay galmo sharci darro ah de galmada sharci darradii waa maxay iyada lafteeda isweydiin leh galmada sharci darrada ah ayay kamid tahay ba agtooda dadka waxaan laga soo qaatay waxa laga soo dheegay shan xeer oo shan wadan ay leeyihiin halkan baan ka sheegayaa qorta eega baadha haddii isma waayaan annaga dib noogu soo celiya shanta wadan ee xeerarkooda laga soo dheegtay ka koowaad waxa weeyaan xeerka faldambiyeedyada galmada la xidhiidha ee dalka Sierra Leone waxa la yiraahdaa Sierra Leone Sexual Offences Act 12kii bishii waa xeerka 12aad 2012 ayaa wadankaasi ansixiyay xeerka labaad ee laga soo dheegtay waa xeerka faldambiyeedyada galmada la xidhiidha ee dalka Gambia waxa la yiraahdaa kana Gambia Sexual Offences Act waxaana isna la meelmariyay 2013 xeerka saddexaad ee laga soo dheegtay waa xeerka South Africa Sexual Offences and Related Matters Amendment Act xeer number 32 oo isagana la ansixiyay 2007 xeerka afraad ee laga soo dheegtay waxa la yiraahdaa Kenya Sexual Offences Act isagana waxa la ansixiyay 2006 xeerka shanaad ee laga soo dheegtay isagana waxa la yiraahdaa waa heshiiskani waxa la yiraahdaa heshiis goboleedka ka hortagga iyo xakamaynta tacadiyada galmada ee lagu la kaco haweenka iyo carruurta ee shirka caalamiga ah ee gobolka haraha weyn ee Afrika Great Lakes Protocol on Prevention and Suppression of Sexual Acts Against Women and Children oo isagana la ansixiyay 3 November 2000